قصة حنون بدن isxisaabi inta Allah subxaanahu wa tacaala ku xisaabinin nin dhallinyaro ah ayaa waxa uu yimid aaska saaxiibkiisa kadib isaga oo kor taagan qabrigii saaxiibkiisa ayaa waxaa su'aal weydiiyey nin shiikh ahaa oo ay is yaqaaneen su'aashuna waxay ahayd haddii saaxiibkaaga uu Allah subxaanahu wa tacaala dib u soo nooleeyo maxay kula tahay in uu samayn lahaa kadib ninkii dhallinyarada ahaa ayaa waxa uu ugu jawaabay waxa ay ila tahay waxa uu isku dayi lahaa in uu soo qaleeyo salaadihii uu ka tagi jiray waxa uu isku dayi lahaa in uu dib u barto qur'aankii la baray misna uu dayacay waxa uu isku dayi lahaa in uu soo qaleeyo wixii soon ahaa ee lagu lahaa oo cudurdaar la'aan ugu tagay waxa uu isku dayi lahaa in uu hagaajiyo xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo rabbigiisa intaa kadib ninkii shiikha ahaa waxa uu ku yidhi wiilkii dhallinyarada ahaa waxa ay ila tahay wanaagga aad soo sheegtay dhammaan adiga ayaa fursad u haystaa in aad samayso waayo saaxiibkaa marnaba ma soo laabanayo si uu u hagaajiyo wixii uu ka tegay balse maanta adiga ayaa haysta jaanis aad ku samayn karto gunaanud wanaagsan ee haddaba isku day in aad adiga hagaajisato xiriirka adiga iyo rabbigaaga idinka dhaxeeya ee ah in aad samayso wixii uu ku faray haddii ay maanta noqoto maalinta ugu dambaysay ee aad ka tegi lahayd gurigaaga gumeelgaarka ah yacnii adduunyada oo aad u guuri lahayd gurigaaga dhabta ah yacnii qabriga maxaad sii diyaarsatay waxaan is leeyahay waa su'aal wax ka beddeli karta qofka iyo sida uu nolosha u arko ugu dambayntii waxaan Allah subxaanahu wa tacaala ka magangalaynaa in ay geeridu noo timaado innagoo aanan filaynin iyadoo aysan wanaagsanayn xiriirka annaga iyo Allah subxaanahu wa tacaala inaga dhaxeeya aamiin yaa rabbi waxaan idiin soo diyaariyey anigoo ah Khaalid Cali Guuleed tan iyo muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo